kulankan lagu taageerayo xubnaha haweenka ka soo muuqday baarlamaanka cusub ee Koonfur Galbeed waxaa soo qaban qaabiyay gudoomiyaha ururka haweenka degmada Baydhabo Marwe Xaawo Sokor Cali waxaana ka soo qayb galay haweenka ka kala socda gudoomiyaasha 10 xaafadood ee magaalada Baydhabo kuwa ka socda ururada bulshada la taliyaha madaxweynaha dhanka haweenka iyo gudoomiyaha Xaawo Sokor Cali ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaasha kulanka oo ayagoo dhiibtay fikirkooda taageerida gabarto walaalana ee Shamso oo ku turjumaysa baahida haweenka maamulka Koonfur Galbeed iyo Soomaaliya dhamaanba waa meebaan malay gabartii lamaad oo ku mid nagadaas maamul goboleedyada sida golaha baarlamaanka way buaha lanti koodood wal ningnagdi adii way ba koofadaane tumanka xaafadood degmada Baydhabo yaa ku koobana wiligaa inaba hasiin rooraan helgamaani adiin way baaniyada haweenkan Baydhabo Koonfur Galbeed walan qobata magal una galantisanka an galne walaay un xaqan lena haniin ku dhiciida maama hadawaaw meekalena wada shaqeyn feele namaynin eta tusaala maadaama meelaha ku bilawtay ogna iyo hadda xubuntanka sareyta Koonfur Galbeed aad roogta meekalena maamulka meel oo nahay lagu hogaamiyo oo lagu shaqeeyo meeyba baarlamaanku maadaama aad gabdhoogi oo iska duubana degmo iyo gobol haweenka neela fadhiyada maamada meelay raayusa advisor-ka neela fadhiyada maama Aamina eeda keentay yarahayn Marwo Aamino Maxamed Mursal la taliyaha madaxweynaha dhanka haweenka ayaa sidoo kale ka hadashay madashii maanta hooyada hataa halgama aheed marka halgamaaga sidiisaba halgama ayuu dhalaa marka waa qof wadaniyadeeda aad iyo aad u wanaagsan tahay waa qof samirkeeda aad iyo aad u weeyahay because wax badan ayaa ka ognahay oo mataqaana isha rabina saxaafada hadii aan ka sheegno waa runtii qof aad iyo aad u samir badan waay marka alxamdulillah alshukrillah ma haddaas ilaahay iskale gudoomiyaha ururka haweenka degmada Baydhabo Marwe Xaawo Sokor Cali oo ayadoo soo qaban qaabisay kulanka ayaa ugu dambeyn soo xirtay madasha kulanka kana hadashay muhiimadda maama Shamsi Madirow oo hayti wasiir ku xigeenka wasaaradda haweenka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed isla marmadaasna in gudubtii maqaamka sare ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed wali lana maama hambaliyo haweenka tumanka xaafadood iyo guud ahaan haweenka Koonfur Galbeed oo hogaamiyaasha la taliyaha madaxweynaha wali in iska koynayay in taageero un suubina mis taageero un kiin suubina maama sida aad ogtay la raayse guud ahaan haweenka Koonfur Galbeed wali han suurnaayeen muddo 3 bilood ku badan in qoondada haweenka la helo wali qabanay shirar badan oo lanku hadlayo qoondada haweenka si automatically lan hela baahida haweenka ee dadku turjumo oo ka jaran dawladda dhatiye alxamdulillah wali qabnay la taliye madaxweyne hatta wali halnay gudoomiye ku xigeenka lamaad baarlamaanka wali ana maamul goboleedkii saddexaad oo u samadaasaytii hala gudoomiye ku xigeen lamaad oo baarlamaanka dawladda sawal intan kuma hadnagaane madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo eedan markan horeeytay la taliyaha dhinaga hanqaabta u soo daasaytii u suubsidii markii lamaad u soo biimay la raayisay baarlamaankii dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iniga progi 20% u saxaqeeyay iniga qoondidii oo heleen mar saddexaad u saxaqeeyay iniga gudoomiye ku xigeenka lamaad baarlamaanka isla marnimadii oo qoondidii haweenka ee u saxaqeeyay wali lana madaxweynaha baliyo kama hadsanta walaal qobati unina koofilaani email raayis uniyada madaasaytii meelasaytii nadeersida kulankan taageerada ururada haweenka degmada Baydhabo ayaa ka dambeeyay kadib markii madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo ka siiyay baarlamaanka qoondada ay ku lahaayeen haweenka Maxamed Alseer Jito dalka TV Baydhabo